ciidanka booliisku uu u qorto ciidan dibow ah aan wax yar idinkaga sheego tababarka horta sidiisa waxa la qoraa ciidan marka baahidu ay jirto ciidan loo baahan yahay waa inuu jiro ciidankaasna waa in ay la marsiyo shuruudo ciidanka booliisku u qoran oo kala ah in caafimaadkiisu jir ahaan iyo maskax ahaanba uu aad u wanaagsan yahay in uu af Soomaaliga qori karo akhrina karo da'diisu inay tahay 25 ilaa 30 dhirirkiisu uu ka gaabneen 1 mitir iyo 60 uu ka gaabneen intuu doono kor waa u dheeraan karaa shuruudaha noocaas qofka buuxiya marka la soo xareeyo waxa la marsiinayaa haddana arrimo kale oo laga maarmaan u ah
qofka inuu yahay qof dhaqan wanaagsan dembi hore aan lahayn aan mataqaanaa dhaqankiisuna uu aad u wanaagsan yahay kuwaasoo kale ah waxaa laga qaadayaa faraha si loo ogaado kaydka dembiyada hoggaanka baarista dembiyada yaalla inuusan wax dembi ah horay loogu xukumin ciqaabtiisa inuu anshaxiisu wanaagsan yahay oo dhaqankiisu u wanaagsan yahay inuusan lahayn balwadaha xunxun ee ciidanku shaqadiisa dhibaato ku keeni kara sida muqaadaraadka inuu waxaasoo dhan yahay nin ka madax bannaan oo si wanaagsan shaqada loo idmado u gudan kara shuruudahaasi howlahaasi markii ay caddaadaan inuu intaasba uu saafi uu ka yahay waxaa loo dirayaa baaris caafimaad baarista caafimaad waxaa ka qaadaya dhaqaatiirta ciidanka booliiska oo jooga ku sugan cisbitaalka booliiska ee Madiina markii intaa laga soo qaado natiijada ka soo baxda ayaa lagu camal falayaa ciddii intaas aan ka gudbi weysay farihii oo dembi ku soo baxay iyo cidda caafimaadkiisu uu u baahan yahay in dib loo isdaweeyo dadkaas shaqada waa laga joojinayaa ma geli karaan sababtoo waxaa weeye qofka asoo buka laba tababari karo isagoo dembi galay ummadda ka galayna ciidan booliisa lagama dhigi karo sida ayaana ciidanka booliiska lagu qoraa ka bacdina waxaa u bilowda tababarka caadiga ah tababarkaasoo ah tababarka marka ugu horeysa la yiraahdo tababarka asaasiga ah oo ciidanka booliisku uu qaato waxaa lagu qaataa tababarka muddo 6 bilood ah dabadeedna waxaa la siiyaa 3 bilood oo dambe oo ah takhasus hadba meesha loo bedelayo oo ninkaas uu ka howlgeli doono ama gabadhaas ay ka howlgeli doonto ayaa shaqada u gaarka ah ay tababar kale u galaan haddii loogu talagalay in uu ka shaqeeyo hoggaanka ilaalinta canshuuraha kale shaqada hoggaanka ilaalinta canshuuraha ayaa la barayaa ama haddii loogu talagalay in uu ka shaqeeyo hoggaanka baarista dembiyada qaabka baarista dembiyada ayada ruuxooda qaybo badan si kale leh oo shaqadii u kala qaybinaya baahidoodu sida ay tahay ciidanka loo soo bedelay oo u tababaraya shaqadooda qolo walba haddii daraawiish yahay daraawiish loogu talagalay inuu daraawiish noqdo daraawiishta 3 bilood oo tababar gaar ah ay siinayaan birmadka sidoo kale gaadiidka hadduu yahay shaqadii meesha loo bedelay shaqadii gaadiidka la baraya isgaarsiin hadday tahay shaqadii isgaarsiinta la baraya sidaas ayuu ciidanka booliisku ku tababaraa ciidamada uu qaadanayo dhalinyarada cusub ee dhiigga cusub ah ee ciidanka booliiska ku soo biiraysa shuruudahaas lab iyo dhadig waa inay buuxiyaan lab iyo dhadig markaan leeyahay waxaan u jeedaa rag iyo dumar dhalinyarada aad qaadanaysaa miyiga idin yimaada mise waalidiinta u baahan sideeda waxaa weeye haddii ciidanku uu u baahan yahay inuu qorto ciidan cusub tirada loo baahan yahay waa la qoraa joornaalka lagu soo qoraa waxaa lagu qoraa idaacadda laga tabiyaa dadweynaha loo baahiyaa taariikhda iyo maalinta iyo shuruudaha looga baahan yahay sidaas waa sida lambar ka koowaad ah oo ciidanka lagu qoro wixii kale oo amar madax ka sareysa ah taliska booliiska ayagana sida uu amarkaas yahay loo fuliyaa dhalinyaro iska socotoo kale hadday idin yimaadaan oo ay codsadaan in aad askariyeysaan soo ma wanaagsano in qof mas-uulka ah aad heshaan marka dabcan xilliga lagu jiro qof walba waxaa loo baahan yahay in la yaqaano cid mas'uuliyadiisa qaada waa in la helaa sidaa awgeed qof walba marka uu yimaado waa la weydiiyaa yaa mas'uulka ah yaa mataqaana ilaa qof meel cidla ka soo toosay ma jiro nin walba meel buu ka yimid waxaa looga baahan yahay marka in qofkii mas'uuliyadda qaadi lahay inuu keeno haddii marka horeba asoo wata ay keeneen oo tusaale ahaan ciidanka ay keeneen rag mas'uuliina
mas-uulkii keenay ayaa lagu qoraa lagu sawiraa galka la geliyaa haddii uu hadhow la yimaado dembiyada kuwa ugu culus oo qarandumiska ah ma aha dembiga kale oo asagu iskii u falo isagaa ka jawaabaya laakiin midka qarandumiska ah haddii uu galo mas-uuliyadda waxaa la wadaagaya ciddii keentay wiilasha hadda halkan jooga ee tababarka ku jira qaarkood muuqaal ahaan aad bay uga yaryihiin da'da aad sheegtay ee aad ku qaadataan maxaa idin caddayn karaa oo in uu jiro da'da 25 ma raalli aga 25 ma aha meeshii laga bilaabayay waa ku hafay waxaa weeye da'da 18 ay ka bilaabanaysaa 18 ilaa 30 inta hore raalli aga hado 18 ilaa 30 way da'du markii laga hadlaayo dhanka aqoonta oo kaleeto ma bees gaar ama meel gaar oo ugu talagashay miyaa jira markaad qofkan uu soo codsanayo ama uu bulshadii xilliyadii dambe ciidanka booliisku wuxuu qaadanayay aqoon darajo leh kala leh darajo kale waxaan u jeedaa dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad waxaan qaadanay arday dugsi dhexe ka soo baxday waxaan qaadanay arday ka soo baxday dugsi sare kuwa jaamiciyiin aan qaadanay hadda sida ay baahidu tahay ayaa loo qaataa ciidanka kuwa hadda aad arkaysaan meeshii waxaa weeye waxa loo qaatay ciidanka difaac ma jiraan haddii aqoontaas oo kaleeto aysan lahayn ayagiina ay rabaan inay ku soo biiraan ciidankii booliiska nidaam kaleeto u gaaraho aad ku soo weysaan oo aad ku soo biirsaan waxaa weeye waa uu jiraa aqoontaas shahaadada leh hadduusan lahayn ugu yaraan waa inuu qori karaa akhrina karaa farta Soomaaliya ugu dambeyn tababarkan 6 bilood kadib maxaa xigi doona waxaa xigi doona in ciidanka halkii loo qorsheeyay markii hore oo loo qoray inuu shaqadii uu qaban lahaa tababar gaar u sii galo haddii loogu talagalay ciidanka inay daraawiish noqdaan shaqada daraawiishta ayaa si wanaagsan loo barayaa 3 bilood oo dambe 9 bilood ayuu ciidanka booliisku tababar qaataa 6 bilood oo hore oo tababarka asaasiga ah iyo 3 bilood oo takhasusiga ah 9 bilood adinka mudan